this guy's a traitor, a treasonist, and he has broken every law of the United States. And I'm not for the death penalty. So if I'm not for the death penalty, I only want to do it. Illegally shoot the son of a... sanadka 2017 bartilmaameedka Julian Assange asaasaha WikiLeaks goobta safaaradda dalka Ecuador ee London ujeedka qabasho ama dil halka amarkaas ka soo fulay halka ugu sarreeyay dawladda Mareykanka iyo hay'adda sirdoonka ee CIA-da caadi ahaan bartilmaameed Assange oo kala waa fududahay oo waxa laga qaban karaa dhaxda marka uu shaqada ka soo ruuxo ama waxa lagu toogan karaa isagoo qof kale u raacay inuu soo sheexo dibka kaliya ee hortaagna labadaas waxay ahayd in Assange uusan sameyn labadaas muddo sanado ah Julian Assange ayaa muddo 5 sano ah waxa uu ku dhumanayay safaaradda dalka Ecuador ee London in la dilo ama booliiska loo diray waxay ka hor imaanaysay sharciga caalamiga ah waxayna xumeyn kartay xiriirka labada dal sidaas darteed CIA-du waxay ku qasbanaatay inay la timaado qorshe kale ugu horreyn waxay ka wada hadleen in si qarsoodi ah looga soo afduubo safaaradda loona keeno Mareykanka ha yeeshee taasi waxay si cad u sheegaysaa in Mareykanku jabiyay sharciga waxay bedeleen kaartadii waxayna go'aansadeen in la afduubo laakiin loo dhiibo Britain inaan la ogaan cidda afduubtay haddana waxay istuseen in fursadda dhiibistu ay yaraan karto haddii uu u gacan galo booliiska Britain ugu dambeyntii waxay gaareen heerar jabel ah oo aysan haysan dooq kale waxayna ka fikireen waxa lagu fikirin miyay si aad u qorsheynaysay in la dilo Julian Assange waxa aan laga fikirin ay u tahay qof kasta laakiin si ayada wax laga fikiri karo go'aan ay ku qaateen inay ka hor yimaadaan sharci kasta si ay Julian Assange ugu qarajiyaan safaaradda uga baad ka raadinayay sumayn togasho in loo diro cid dhameystirta inta uu ku jirtay qorshaha CIA-da laakiin waxa yimid waxa aysan CIA-du ku fikirin oo ah in Ruushku xaqiiqsaday in Mareykanku doonayo qarijinta Assange Ruushka ayaa go'aansaday inay sameeyaan cagsiga Mareykanka oo ah badbaadinta Assange Ruushku waxay doonayeen in Julian Assange ka caawiyaan sidii ugu baxsan lahaa Ruushka maxaa yeelay Ruushku Snowden oo ah jaajuus Mareykan ah uma siin nimangalida niyad wanaag laakiin waxay rabeen in lagu bahdilo Mareykanka oo kale loo sameeyo Assange waxay noqonaysaa guul kale CIA-da ayaa ogaatay qorshaha Ruushka waxayna meesha ka saareen qorshahoodii hore ee dil ama qabasho haddaba CIA-du waxay markan ka fikiraysaa sida ay ugu hortagi lahayd qorshaha Ruushka ee Assange lagu fakinayo haddii Ruushku ka caawiyo Assange inuu gaari ku baxsado CIA-da ayaa gaarigooda ku dhufan doonta kadibna sidaas ku qaban doonta haddii inta lagu jiro qorshahaas ay dhacdo in la isku rasaasay bartamaha London Ruushkuna isku dayaan inay diyaarad ku fakiyaan waxay CIA-du weydiisanaysaa booliiska Britain inay diyaaradda lugaha ka togtaan inta aysan u kicin Moscow sirdoonada Mareykanka Britain iyo Ruushka ayaa ku jira tartan ah cidda hor helaysa Julian Assange ilaa heer ay garaan in qof kasta oo bini'aadan ah oo ka shaqeeya ismaha safaaradda ama ku agdhow uu u shaqeynaya hay'adahaas midood haddii ay yihiin kuwa wadooyinka xaqa booliis ama wardiyaal su'aashu waxay tahay waa maxay sababta Mareykanka uga cabsanayo hal nin ilaa ay garaan in iska inatiraan xaqiiqda oo ay qorshiyaan in safaaradda ajnabiga ku taala lagu dilo ama laga soo afduubo shakhsi maxaa keeni kara inaad gasho liiska ugu sarreeya ee dilka ee CIA-da Julian Assange waxa uu ku dhashay Australia sanadkii 1971 60 jirkiisii waxa uu ahaa hacker ama jabsade isagoo ku howlgalaya magaca afgarashidiisu iyo Mendix ayuu jabsaday shirkado iyo hay'ado waaweyn oo Mareykanka laga leeyahay sida wasaaradda difaaca Mareykanka hay'adda cirbixiyaanka Mareykanka ee NASA shirkadaha Panasonic iyo Lockheed Martin markii uu 12 jiray waxa uu ahaa nooca cunuga aadka u caqli badan ee kaliya aad ku daawato filimada intaas waxay ilaa 91 intaan Assange lagu qaban isagoo oo isku dayay inuu jabsado shirkad isgaarsiineed oo Canada laga leeyahay waqtigaas oo da'diisu ahayd 20 laba sano ayuu xabsi ku soo qaatay ilaa lagu soo daayo isluub wanaag sanadkii 1993 markii uu aqbalay inuu xirfadiisa ku caawiyo booliiska Australia wixii intaas ka dambeeyay wuxuu ku noolaa nolol xasiloon oo aan u shacab baxsaneyn sidii uu lagu bartay dhowr xiisad ayuu ka qaatay jaamacadda Melbourne kadibna sanadkii 1999 ayuu diiwaan galiyay bartiisa League.org inkastoo bartiisa wax badan aysan qaban muddo 7 sano ah ilaa laga gaaray 2006 markaas oo bilaabay hay'adiisa oo ka dhigtay ninka ay ugu cabsida badan yihiin quwadaha dunida WikiLeaks ayaa bedelay qaabkii ciyaarta iyo habkii warbaahinta markii la furay sanadkii 2006 waxa uu ahaa waxaan horey dunida u arkin qof kasta oo haya xog muhiim ah ama sir culus waxa uu si qarsoodi xogtiisa ugu gudbinayay WikiLeaks taas oo ahayd waxaan caadi ahayn waqtigaas waxay ahayd sida kaydka ciwaanka emailka ah inta aad la wadaagi lahayd sawirada fasaxa qoyska waxaad la wadaagaysaa sir culus WikiLeaks kadibna waxay eegayaan xogta si ay qiimeyn ugu sameeyaan marka ay xaqiijiyeen muhiimadeeda waxay la wadaagayaan wargeysyada caalamiga ah sida The Guardian iyo New York Times waxa uu WikiLeaks uga duwan yahay baraha kale ee siraha dusiyay ayaa inaan marnaba lagu maxkamadeyn karin inay xog xadeen maxaa yeelay iyagu ma sameyn shaqada jabinta taas oo ilaa xad ka dhigaysa kuwa aan dambi lahayn faa'iidada kale oo WikiLeaks leeyahay ayaa in xogaha sirta oo ay daabacaan maxkamadaha loo adeegsan karay
taas wax badan ayay ka beddeshay waxaana halis u arkay dadka awoodda leh ee qaranaya siraha badan. Haddii barta sirta dusinaysa ay daacwada xogta way adkaanaysaa in maxkamadaha Mareykanka ay aqbalaan caddaynsi sharci darro lagu helay. Si taas looga hortago WikiLeaks iyagoo ma jabsanin xogta, taas waxay keentay in maxkamadaha Mareykanka lagu isticmaali karay. bilowgii hore WikiLeaks si weyn uma shaac bixin. 2007 ayay faafiyeen warqad faahfaahinaysa sida Mareykanku ula dhaqmo maxaabiista Guantanamo. 2008 waxay soo daayeen 5,000 oo fariimo la xiriira 9/11 September, laakiin fariimahaasi sooma jiidan dareenka dowladda iyo dadweynaha Mareykanka ilaa 2010. Abriil 2010 WikiLeaks ayaa soo daayay muuqaal aan aad u tayo badnayn oo diyaaradda Apache oo ka qayb qaadanaysa duqeyn ka dhacday Baghdad. July 2007 WikiLeaks ayaa faafiyay muuqaal duqeyn ka dhacday Baghdad oo lagu dilay 18 qof. Muuqaalka ayaa laga arki karay dad shacab ah oo iska socday diyaarad nuuceedu yahay Apache oo dul haabaysa. Ciidanka Mareykanka ayaa sheegay waqtigaas inay shaqo ku jirin ciidanka isbahaysiga ay ku jireen howlgalka ka dhanaca kooxaha ka soo horjeeda. Militariga Mareykanka ayaa isku dayay inay helaan muuqaalka, laakiin uma suuragelin waxaana ugu dambeyn muuqaal gacanta ku dhigay WikiLeaks oo inta ay fureen ku daabacay boggooda iyagoo cawaan uga dhigay dil wadareed. Waxa ay banaanka keentay in dadka la laayay aysan ahayn cadowga ciidanka Mareykanka, laakiin ay ahaayeen laba sawir qaaday oo aan hubaysnayn una shaqaynay wakaaladda wararka Reuters laguna kala magacaabay Namir al-Nuruddin iyo darawalkiisa sidoo kalena ahaa caawihiisa Siciid Shamah. Duuliyaha ayaa kaamirada u qaatay hub iyaga iyo shacab kale oo aan hubaysnayn una muuqan cadow. Militariga Mareykanka ayaa isku dayay inay ka dhigaan in wariyaasha ay dishay rasaas aan lagu talagalin, laakiin si dhaqso ayuu muuqaalka ugu baahay warbaahin kasta dunida dacaladeeda. Blasting the release of over 90,000 U.S. military records on the war in Afghanistan. WikiLeaks.org, a whistleblower website, has published what it says are nearly 92,000 official U.S. documents of raw data on the deaths and casualties collected over the past 6 years. The WikiLeaks website released nearly 400,000 secret U.S. files on the Iraq war late today. It was the largest leak of classified U.S. files in history. qof kasta ayaa bartay magaca Julian Assange, xataa dowladda Mareykanka oo aan sinimo ugu faraxsanayn. Wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa WikiLeaks ku tilmaamtay khatar amniga qaranka. Qofka dusiyay muuqaalka oo ah Chelsea Mann ayaa la qabtay. Looma qaban WikiLeaks dartiis, laakiin waxaa loo qabtay dusinta muuqaalka iyo kumanaan kale oo dokumentiyo ah oo xoog qarsoodi ay ku jireen. Wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa isku daday inay xiraan isha dhaqaale ee WikiLeaks. Ha yeeshee WikiLeaks ayaa u guuray Bitcoin. Ugu dambeyntii Mareykanku ma xiri karin Assange maxaa yeelay isagoo si toos ah ugu mulug yeelan bilayar kadib markii barta WikiLeaks ay baahisay muuqaalkii ugu caabta badnaa ciidanka Mareykanka tan iyo sanadahan. Julian Assange waxaa lagu eedeeyay dembigaas oo loo ogol lahaa in lagu dilo sumcadiisa. Bishii July 2010 Julian Assange ayaa booqday Sweden si uu taageero ugu raadiyo WikiLeaks kadib baahintii muuqaalka ciidanka Mareykanka. Assange ayaa cabsi ka qabay waxa Mareykanku u samayn karaan argoosi ahaan, waxa uuna filayay in Sweden noqon doonto gaashaan isaga iyo bartiisa WikiLeaks. Marka laga reebo 3 bil oo kaliya oo uu nabadgelyo ugu noolaa Sweden, ciidanka Sweden ayaa soo saaray amar lagu soo xiriyo Assange. Waxay ku eedeeyeen inuu xadgudub galma ka galay 2 haween ah markii uu booqday Sweden. Waqtigii la soo saaray amarka bixiritaanka, Julian Assange ayaa ku sugnaa dalka Britain. Inkasta oo Assange isku dhiibay ciidanka booliiska Britain bishii December, haddana waxa uu ku adkaystay inuu bari yahay iyadoo lagu soo daayay damaanad. Julian Assange ayaa qaba ahtuun ah inay isla xiriiraan muuqaalada uu faafiyay ee dunida ruuxay iyo dambiga Sweden ku eedeysay oo loo gal lahaa in lagu sumcad dilo isaga iyo bartiisa iyo wax kasta oo ay faafiyaan mustaqbalka. Assange ayaa si weyn u weeraray nidaamka garsoorka Sweden oo ku tilmaamay mid liita oo ay sii baabi'iyeen faragelin shisheeye, ka fikradda in xirfadaha mar laga gaaro iyo dhaqanka naagnimada xagjirka ee waalan. Cilada kaliya ee doodan ku jirta ayaa ah in sharciga Sweden uu mamnuucayo in qof loo gacan geliyo arrimo siyaasadeed oo ay ku jiraan basaasnimada iyo dambiyo dil lagu mutaysan karo. Dambiyo uu hubo Assange in Mareykanku u isticmaali kareen waxaa ka hortaagnaa in sidaas dhacdo in Julian Assange uu aad uga dadaalay in loo gacan gelin Sweden oo haddii taasi ay dhacdo maanka ku hayay in Mareykanku heli doono si loogu gacan geliyo isla markaana uu ku oogi karay dambiyo ay rabaan. 3 May 2012 maxkamadda sare ee Britain ayaa xukuntay in Assange loo gacan geliyo Sweden si uu u wajaho eedaha loo haysto. Dhibaatada kaliya ee jirta ayaa ahayd inaan la ogeyn halka Assange uu joogay maxaa yeelay intii dacwadu u socotay waxa uu banaanka ku joogay damiin. Kadib go'aankii maxkamadda ayaa hal mar la waayay meel uu ka baxay. Dowladda Britain ayaa sheegtay inay hubto inuusan dalka ka bixin, laakiin cidina ma ogaan karin ilaa ay soo gaarto waqti dambe. Waqtigaas waxa uu ku jiray safaaradda Ecuador ee dalka Britain isagoo kala xaajoonayay inay mangaleysiiso dowladooda. 16 Agoosto 2012 wasiirka arrimaha dibadda Ecuador ayaa shaaciyay in asaasaha WikiLeaks mangaleysigan sida laga siiyay safaaradda Ecuador ee London. Waxa uuna yiri waxaan ku kalsoonahay in dowladda UK sida ugu dhaqsiyaha badan ay u siin doonto damaanad marin nabadgelyo ah mangaleyda Assange ayna ixtiraami doonaan heshiisyada caalamiga ay hore u saxiixeen.
markastana ay ixtiraamaan. xafiis yar oo ku yaala safaaradda ayaa loo bedelay stuudiyo ay yeelaan sariir, kombiyuutarro, jiko. haddii marti u timaado waxay ku soo booqan kareen gurigiisa, qareenadiisa, tababarihiisa jirdhiska iyo cid kasta oo timaada waa inay qolkaas wadaagaan. haddii uu isku dayo inuu cag banaanka dhigo, booliiska Britain ayaa banaanka ugu diyaarsan si ay ugu xiraan inuu baxsay isagoo damaanad banaanka ku jooga. waxa uu ku go'doonsanaa safaaraddaas muddo 5 sano ah kahor intii uusan WikiLeaks soo daynin xogtii ugu waxyeelada badneyd Mareykanka oo dhibaato xooggan u geystay sumcadda Mareykanka. Assange ayaa bartilmaameed u ahaa dowladaha isxigay ee Obama iyo Trump. waxa uu ceebiyey ciidanka Mareykanka oo banaanka keenay awood darradooda dhanka amnigooda internetka. bishii Maarso ee 2017 waxa uu soo daayay WikiLeaks waxa ay ugu yeereen Fault 7 oo lagu doodi karay inay tahay xogtii la dusiyay ee ugu ceebta badneyd CIA dowladda Mareykanka. Su'aashu waxay tahay maxay ahayd Fault 7? waxa ku jira dhammaan dukumentiyada gaarka ah ee la xiriira waaxda qarsoodiga ee CIA u qaabilsan sashada ka baxsan hay'adda gudaheeda iyo taatikada ay ku howlgalaan. kuwii la rabay inay ahaadaan kuwa ugu sarreeya dhanka jabsashada dunida oo idil ayaa laga jabsaday. fashilkan kaliya ma ahan ceeb, wuxuu soo afjaray sumcaddii ay hay'addu sanadaha lahayd. hay'addii loo xil saaray ilaalinta siraha Mareykanka ayaa awood u yeeshay inay joojiso dusinta siriyada ugu culus. Fault 7 ayay ku jirtay xogtii oo idil. faafahinada ku jira waxaa kamid ah qalabka korontada ku shaqeeya ee CIA u isticmaasho, socodka dadka, hubka loo adeegsado dagaalka internetka sida malwareka, fayraska iyo sida CIA u isbsan karto shirkad kasta oo isgaarsiineed. waxyaabahaas oo idil ayaa WikiLeaks banaanka keenay si dunidu u aragto. CIA ayaa horey saraakiisheedu ugu maadsan jireen oo u dhihi jireen oo wax lagu qoslo in Pentagon iyo waaxda arrimaha dibadda Mareykanka aysan xog badan ka ilaalin karin WikiLeaks. markaanse waa markooda. CIA argoosi marnaba ma ahayn in wax la iska weydiiyo. waxa uu ahaa wax kaliya ee u furan maadaama dhiigoodu koray oo ay kaliya arki kareen wax u dhigma ceebta gaartay. midabka guduudan ayaa u darnaa CIA. qofka koowaad ee bartilmaameedka ahaa wuxuu ahaa Julian Assange. 13 Abriil 2017 agaasimihii CIA waqtigaas Mark Pompeo ayaa qaaday wadada dagaalka. wax ka yar 7 markii la daabacay warbixintii Fault 7, Mark Pompeo ayaa cadeeyay mowqifkiisa WikiLeaks. waxa uu aqoonsaday hay'ad aan dawli ahayn oo sirdoona si toosna cadowga ah Mareykanka. Mark Pompeo oo ka hadlayna waxa uu yiri talks like a hostile intelligence service and talks like a hostile intelligence service. It has encouraged its followers to find jobs at the CIA in order to obtain intelligence. It's time to call out WikiLeaks for what it really is: a non-state hostile intelligence service often abetted by state actors like Russia. WikiLeaks waxa uu socdaa sirdoon oo cadow ah. waxa ku waraacsan oo ay ku dhiirigeliyeen inay shaqo ka raadsadaan CIA si ay xogo sirdoon u helaan. waxaa la joogaa waqtigii WikiLeaks loogu yeeri lahaa waxa uu yahay hay'ad sirdoon aan dawli ahayn oo ay taageeraan jalayaal dawli ah sida Ruushka. hadalkaas ayaa ahaa hadal xafiiseed qiil u samayn karay adeegsiga tallaabooyin weerar ah oo ka dhan ah hay'adaha sirdoon iyo aan dawliga ahayn. dagaalku waa uu bilowday sida Pompeo qabayna ma jirayo sharci la raacaya ama waxa la xiriirinayo. kadib khudbadiisii waxa uu saraakiisha CIA siiyay amarka inay ka fakaraan farsamooyinka suurtagalka ah. waxaa laga soo xogtay inuu ku yiri saraakiisha hay'adda wax xad ka baxsan ma jiraan, micnaha wax kasta waa bannaan yihiin. isku celinna waxa aad haysaan. waxaan kaga baahanahay fikrada lagu howlgalo aniga ii daaya qareenada Washington jooga. tani waxay keentay in laga fakaro qorshayaal waali ah inkastoo jaajuusada iyo qorshayaasha kale aysan hore u socon sababo la xiriira qareenada oo ku yiri ma ahan fikrad fiican. inkastoo ay muuqatay in Assange uu ka bixi karay liiska dilalka ee CIA, tana taasi waxba kama bedelin xaaladii uu ku noolaa. inaad marti ku ahdo guriga qof kale in ka badan 6 sano waa mid culeyskeeda leh. marnaba la yaab ma ahayn markii ugu dambeyntii sanadka 2018 ay wadar ka daajisay martigelinta Assange. sida muuqatay Assange waxa uu diiday inuu nadiifiyo saxrada mukulaashiisa oo lagu magacaabi jiray Michi ama mukulaasha safaaradda iyo inuu ka xanaajiyay dowladda Ecuador. markii uu WikiLeaks ku daabacay macluumaad waxyeello u geysanaya madaxweynaha cusub ee Ecuador Lenin Moreno oo Iran, WikiLeaks dhanna uma janjeerin oo cidna ma dhaafin xataa martisooriyaashiisa. bishii July 2018 madaxweynaha Ecuador Lenin Moreno ayaa amray in Assange uu sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxo safaaradda. isla bishii October 2018 Assange ayaa isku dayay inuu dacwiyo safaaradda Ecuador isagoo ku eedeeyay in internetka ka jireen uguna hanjabeen inay dhiibayaan booliska UK. wixii intaas ka dambeeyay xalku waa uu sii xumaaday. waxyaabaha la yaab kale ee soo baxay waxaa kamid ah in shirkadii safaaradda Ecuador ay u xil saartay amniga Assange UC Global ee Assange basaasaysay iyagoo la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka. isla shirkadda safaaraddu $6 milyan oo dollar 7 sano ee ugu dambeysay. Assange ayaa noqday dhibaato ka weyn inta uu dhigmo. safaaraddan waxay ku dhaweyd inay xiriirka u jirto. bishii Abriil 2019 madaxweynaha Ecuador Lenin Moreno ayaa ku dhawaaqay in Assange aan laga sii rabin safaaradda sababo la xiriira inuu jiibiyay heshiiskii maangalidiisa, laakiin si aysan marna u shaqo ku lahayn sawirro uu daabacay WikiLeaks. madaxweynaha Ecuador la xiriirinaysay masqumaasuq. Assange waxa uu haystay waqti si uu ugu diyaar garoobo inuu ka baxo safaaradda, laakiin 9 bari kadib safaaradda Ecuador ayaa booliiska UK ku casuuntay safaaradda si ay u xiraan Julian Assange sababo la xiriira baxsadkii isagoo damin dibadda ku jooga. isla maalintaas ayaa Assange lagu helay inuu dambi galay waxaana lagu xukumay 50 isbuuc oo xabsi ah kana bilaabanaysa 1 bishii May 2019. sida muuqata hadda waxaa la gaaray waqtigii Mareykanku soo gali lahaa. Assange ayaa sanad ka hor si qarsoodi ah loo eedeeyay bishii Maarso 2018. maalintii la xirina waxaa la shaaciyay eeda loo haysto. waxaa lagu sugay inuu maleegay shirqoolo loogu dhacayo kombiyuutarro. bil kadib waxa uu xukunka maxkamadeed ku qaadanayay xabsiga Belmarsh. Mareykanka ayaa eedaha hore ku koriyay 17 eedo. waqtiga ugu badan ay eedahan kari karaan ayaa ah 120 sano oo xabsi ah. bishii May
July sanadka 2019 xilli lagu jiray dacwad la xiriirtay in Assange loo dhiibo Mareykanka iyo in kale ayaa Assange waxa uu yiri wadani inaan isku dhiibo gacan galin ka dhalatay qabashada shaqadeeda saxaafadeed oo ku guuleysatay abaalmarino badan dad badan difaacday 4 July 2021 garsoore ayaa ku gacan saaray codsiga gacan galinta Assange isagoo cuskaday xaaladda maskaxeed ee Assange oo horseedi karta inuu isdilo waxa kale loo diiday inuu damaanad banaanka ku joogo maxaa yeelay waa qatar duulimaad Julian Assange waxa uu weli ku jiray xabsiga Belmarsh hadii Mareykanka lagu angaliyo wuxuu gali doonaa qol kaligiis lagu xiro iyo xabsi aad loo ilaaliyo amnigiisa 170 sano oo xabsi ah ayuu kaliya ku mutaystay inuu qabsaday shaqo ay qabtaan wariyaasha kale Jeremy Corbyn hogaamiyihii hore ee xisbiga shaqaalaha Britain ayaa yiri waxaan isleeyahay waxa uu sameeyay kaliya waa inuu awood runta kula hadlay taas waa inaan loo cuskan in lagu xiro What I think he's done is spoken truth to power. That should not be a basis on which you end up in prison. Leon Panetta agaasimihii hore ee CIA ayaa qaba in la ciqaabo Assange isagoo yiri ugu dambeyntii waa inuu dalkan ku dambeeya si uu wajaho maxkamad waa in la ciqaabaa. He should come back to this country to face trial. I think he should be punished. Snowden oo hore Mareykanka uga baxsaday ayaa isagana waxa uu yiri maxaa dhacaya marka ay Shiinuhu dalbadaan nin wariye Kanada u dhashay loo soo dhiibo maxaa dhacaya marka Saudi Arabia saas oo kale ay ku sameeyso qof ku nool Argentina waxaan jideynaa su'aalo aan la noolaan doono boqolka sano ee soo socda China demands the extradition of a Canadian journalist. What happens when Saudi Arabia does the same thing about someone living in Argentina? We are setting a precedent right now that we are going to live with for the next 100 years. Sweden ayaa gabi ahaanba meesha ka saartay eedii loo haystay Julian Assange sabab la xiriiray in caddeyn lagu helin